بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي عبد الرحمن حسن أوجي وحن كمد أهي جالية الصومالية دقن مقالة السيارة القبل كواشتون عرق مريكنكا وحن ربا أقهرين إن هالكان أقومهد عليو وزارة ورفافنتا خاصة SNTV iyo walaalkay Cabdi Xakiin oo maanta suurtageliyay in aan arrinkan ka hadalno waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta baasaboorkeena Soomaaliyeed muddo su'aasha dadka isweydiinayaan waxay tahay sidee ayay ku suurta gashay in baasaboorka Soomaaliyeed laga qaato ama laga heli karo magaalada Seattle Washington ayadoo markii hore ay ahayd in loo aado Washington DC oo kaliya muddo laga joogo 3 sano ayaa dadaal dheeraad ah ayaa waxay sameeyeen jaaliyada Soomaaliyeed runtii xiriir ee la yeesheen wasaaradda arrimaha dibadda iyo safiirkeennii markaa noo fadhiyay ambassador Cawad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ambassador Cawad wasiirka arrimaha dibadda dawladda federaalka iyo waliba safiirkeena Mareykanka noo fadhiya Ali Sharif iyo safiir ku-xigeenka Cabdiraxmaan Bashiir oo runtii si wadajir ah iyo dhammaan howlwadeennada safaaraddeena noo fududeeyay in aan magaalada Seattle Washington baasaboorada ka bixino qaabka ay shaqada uga socoto magaalada Seattle waxa weeye in qofka Soomaaliga ee muwaadinka ah loo fududeeyo hawsha mar allaale markuu rabo inuu baasaboorka Soomaaliyeed uu qaato bish sanadkan hadda bilowday waxaan siinay oo safaaradda fududeysay in baasaboorka magaalada Seattle laga siiyo ilaa iyo 9 qof caqabadana hor istaagay COVID-19 kii cudurkii dhacay kadib alxamdulillah ilaahay wuu noo fududeeyay waxaan rabaa inaan u sheego dadweynaha Soomaaliyeed ama jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Mareykanka meeshii ay ka qaadan lahaayeen travel document ama bahalka lagu safro in ay u fududahay maanta alxamdulillah oo baasaboorkeeni wadankeeni noo soo noqday baasaboorkana Soomaaligan ay qaadan karaan waxaan mahad u celinayaa dhammaan jaaliyada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan u dirayaa baaq inay ka faa'iideystaan fursadahan qaaliga ah iyo serviceska dawladooda ee uu keenayso guryahooda iyo magaalooyinka ay degan yihiin safaaradda Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa in serviceska noocan ah la balaariyo oo runtii magaalooyinka kalena ee Soomaalida u badan tahay sida Minneapolis oo kale servicekaasna la geeyo insha Allah taala waa mahadsantihiin faa'iidooyin badan ayuu leeyahay baasaboorkeena marka aan ka qayb qaadano kulligiin sidaan u taageeri lahayn dawladdeena iyo safaaraddeena jazaakumullahu khayr. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.